waxaan ku bilaabanaysaa qodobadaba ku dhageysanayseen ciidamo biliis oo wata baabuur ciidan oo gaashaaban ayaa caawa fiidnimadii waxay tageen xarunta daljir ee magaalada Boosaaso kuwaasi oo tagitaankooda daljir oo daaranaa doonista mas'uuliyiin daljir oo ka mid yahay agaasimaha guud ee raadiyo daljir Axmed Sheekh Maxamed Tolman iyo wariyaal kale oo ka howlgala daljir ciidamadaasi biliiska ah ee caawa tagay xarunta daljir ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay inay raadinayeen xubno mucayin oo daljir kuwaasi oo xilligaasi ay biliisku tageen xarunta ka maqnaa shaqada ma jirinin waxa gudub ah oo ciidamadaasi ay ku talaabsadeen intii goobta ay joogeen amaba xoog ku gelitaan xarunta waxaana ay ka laabteen goobta kadib markii qaar ka mid ah howlwadeennada la jiro xarunta ku sugnaa ay u sheegeen inaysan joogin shakhsiyaadka ay raadinayeen talaabadaasi ayaa sida muuqata daba socota warbixin tacadiyo raadiyo daljir uu ka diyaarshay maxaabiista la qabto shalay ayayna ahayd markii sidan oo kale ciidan biliis ay tageen xarunta daljir ee magaalada Garowe ee caasimadda Puntland maxamuud cabdi ibraahim oo agaasimaha daljir Boosaaso ayaan goor dhaweyd caawa waxa aan weydiiyay tagida biliiska ee xarunta daljir Boosaaso iyo tabaha ay wax u dhaceen aad baan mahadsantahay xadiiska Axmed Geedi abaartacada ka ahayd sababadii iyo qadar 30 daqiiqadood ayaa caawa xarunta warbaahinta daljir ee ku leeyahay magaalada Boosaaso waxaa yimid ilaa iyo 3 kamid ah dagaalka nooc loo yaqaano TRF oo ay saarihiin ciidamo aad u hubeysan xarunta ay yimaadeen albaabka ay soo gargaraaceen xilligaas waa xarunta ku sugnaa farsamayaqaanka guud ee daljir qaybta Boosaaso Cabdiraxmaan Yemani kadibna markii uu ka furay isaga iyo yarta qaybta kuleedka qaabilsan waxa ay weydiiyeen ciidamadan ujeedkoodu waxa uu yahay kadibna waxa ay ku sheegeen in idaacadda ay u socdaan agaasimaha guud ee Tolman iyo weliba xaq kale oo isla xaruntan Boosaaso ka tirsan ciidankaasna aysan wadan wax warqad ah oo cadeynayo in ay maxkamad ay waaran soo jirtay mana jirin sifo sharci ah oo ay xarunta ku yimaadeen oo ay maamulka xitaa kusoo wargeliyeen inay xarunta ay imaan doonaan waatay marka ciidankaasi ma biliis baa mise ciidamo kale ahaayeen xiriir aan la sameeyay qaar ka mid ah saraakiisha amniga waxaa la xaqiijiyay in ciidamadaasi ay ka socdeen qaybta booliiska gobolka bari gaar ahaan taliskooda waxaa xusid mudan in habeennimadii xalay uu jiray in taliye ku-xigeenka booliiska qaybta booliiska ee gobolka bari ninka la yihahdo cabdirashiid aamusane inuu la soo xiriray warbaahinta daljir gaar ahaan weriye xasan haykal oo kamid ah weriyaasha warbaahinta daljir isla mar ahaantana uu ku amray in uu yimaado saldhiga ama taliska qaybta booliiska gobolka bari xilligaas iyadoo wada hadlaya ayaa aniga ka dhex galay kadib markii uu haykal iisoo gudbiyey kadibna taliyaha ayaan wacay oo waxaan idhi taliya maxay tahay ujeedka haykal looga doonayo anigu waxaan ahay agaasimaha daljir hoos imaanayay ninka la yihahdo xasan haykal marka maxay tahay hawsha saldhiga qaybka naga taal kadibna waxa uu igu jawaabay isaga ayaa loo baahan yahay kadibna waxaan u sheegay inaan anigu aan agaasimihiisa ama maamulkiisa haddii uu imaanayana ay tahay wax aniga inay isoo marto ama inaan anigu aan ogahay haddii ay hawl shaqo oo booliiska la xiriira iyo arrimo kale haddii ay yihiin laakiin arrin dacwadeed haddii ay tahayna in loo baahan yahay maxkamad waaran ay soo dirtay oo warqad cadeen ah oo qofka shaksigaas lagu soo xirayo sababtoo ah Puntland dastuur baa yaal oo ma aha meel sharci iyo fawdo iyo kala dambeyn ay ka jirto qof kasta xaq waa lagu leeyahay in la soo xiro laakiin qofkaas waxaa la soo xiri karaa marka warqada la soo jiro oo la soo dacweeyo waaran baa waa inuu soo baxaa oo la yiraahdaa hebel dacwadaas ayaa lagu haystaa imow maahan in si fawdo anshaxo ma ah kala dambeyn la-aan ah in tiriyafiyo iyo handadaad in laisugu yeero iyadoo systemka Puntland ka jiran uu yahay nidaam dowladnimo ay ummadda ku heshiisay ciidankani waa ciidan biliiska qaybta biliiska ka yimaadeen wararku waxay tilmaamayeen wadada hormartay idaacadda in la xiray isku socodka wadada iyo dariiqa la joojiyay taasi ma jirta arrintaas waa ii sheegeen wariyaasha daljir qaybta Boosaaso anigu yaa la socoto waxaan ku maqnaa gobolka Sanaag gaar ahaan xarunta daljir magaalada Baran
oo aan arrimo shaqo oo degdeg ah subaxnimadii hore ee shalay aan u baxnay aniga iyo xasan aykal iyo yar shaqaalahayna kamid ah markii aan tagnay baran oo howla idaacadda ku saabsan aan halkaa u tagan kadibna waan soo laabanay isla caawa fidadkii marka waqti yar ka hor bay ahayd markii xitaa anigu laftigan aan soo galnay magaalada boosaaso waqti yar ka hor bay ahayd markii nala soo wacay oo la yidhi xarunta ciidamo ayaa jooga markaa kadib ayay noqotay anaguna aan la xirino hayadaha amniga oo aan weydiino ciidamadaas iyo sababta u yimaadeen xitaa gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed dhado ayaan la xiriiray inkastoo taleefonka uu iga jawaabi waayey si aan wax ugu weydiiyo maadaama gudoomiyihii guddiga nabadgelyada gobolka bari uu isagu yahay in arrintan ciidamada xarunta yimid inuu wax ka og yahay iyo meelaha ciidankaasi ka yimaadeen laakiin uma suuroobin in gudoomiyaha gobolka in uu xiligaas arrintaas uu inooga jawaabo maxamuud shalay sidan oo kale ciidan baa u tegay xarunta daljir ee magaalada garowe caasimadda puntland caawana dabcan xarunta boosaaso ciidamo biliisa yimaadeen arrimahan maxaynu ka ognahay asbaabta ay gunta ku hayaan dalbi sidaa la socoto warbaahinta daljir waxaa toddobaadkii hore uu baahiyey tacadiyo ka dhacay xabsiga dhexe ee boosaaso oo ay geysteen taliska booliiska puntland tacadiyadaas oo isugu jiray jirdil taas oo markii dambe maxbuus kamid ah maxaabiistii xabsiga ku jirtay u geeriyooday anagu ma ogin wax kale oo arrimo kale oo jira oo booliiska iyo weliba warbaahinta daljir ka dhexeeya runtii daljir wada shaqeyn baaxad weyn bay booliisku ay la leedahay iyadoo soo duurta dhacdooyinka iyo waxyaabaha ay soo bandhigayaan iyo shaqo maalmeedkooda marka ma ogin waxay jira laakiin arrintaas waxaa si aada uga carooday taliyaha booliiska jenaraal muxidiin oo isagu sheegay in warbaahinta daljir uu xiri doono sifa kasta uu maro marka horeyna waxaa jirta in warqad dacwad ah in maxkamadda u gudbiyey annagana warbaahinta daljirna waxaan hore u sheegnay in sifa kasta oo sharcigu marayo inaan soo dhaweynayno maadaama dastuurka puntland uu qabo qofka dacwad qaba in maxkamadda uu tago uu dacweeyo balse ay anshaxumo tahay in qofka tallaabo iska qaado marka midda kale jirto waxa weeye cabdifataax cumar geedi arrinta kale ee jirto waxa weeye sidaa socoto warbaahinta daljir waxa uu hadlaa dadka aan codka lahayn iyo dadka dulman ujeedka iyaguna waxa weeye in qaladka marka aan soo bandhigno si loo soco qof gurigiisa jooga oo annaga aan xog ama dhacdo aan ka qornay ma jirto waxaan ka qorna waxa weeye dadka bulshada maadaama qofka isagu marka hore mas-uuliyadda uu soo raadsaday ama marka hore mas-uuliyadda bulshada uu qaaday haddii uu qalad uu galo waxaan xaq u leenahay inaan qaladkaas bulshada aan usoo bandhigno haddii uu diidayana waxa weye waa inuu qofkaas gurigiis waa inuu fadhiya haddii uusan rabin khaladaadka iyo waxa uu galayo iyo siduu u socdo in warbaahintu aysan sheegin kaasi waxa uu agaasimaha daljir boosaaso maxamuud cabdi ibraahim oo telefoonka igu warramay